وتهاي هبي وناكسن دقيستيال ولي برنامج كحكتا يدقيسن إنسان مدحوينها دولة جولات كبوتلان سعيد عبد الله دني أيها سود ويجراها سمت بحنتا يبدبادة إيه لوجر واقعي مقالة مقدسة إسقون وكوب جادي إني بوتلان لقاتين أركتدا دولة ديسك سوماليا مدحوين الدني وقدبت كجدية فريتان كالفدية كونتني لحد برلمان كبوتلان أيها كدا واجي إن لو بهاي هي حنان دور الشو أي دتك وكوة الصعدان وحونوجو باقي madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu talada dhulka dhigo lagana wada hadlo arrimaha cakiran ee horyaalla dalka. Dani waxa uu ku celiyay in ay Puntland weli ku taagan tahay mowqifkii iyo go'aankii ay ka qaadatay wada shaqaynta dowladda federaalka Soomaaliya sanadkii 2022 kadib markii sida uu sheegay ay arkeen meesha dalka loo wada inay tahay meel qaldan oo aanan ka turjumaynin danaha dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladnimada ay rabaan waa sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn waxa uu madaxweynaha Puntland ku baaqay in la isugu yimaado lagana shaqeeyo samata bixinta dalka iyadoona loo daba fariisanin cid gaar ah waxa uuna sheegay in golaha haatan Muqdisho looga dhawaaqay ee ay ku mideysan yihiin mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya inuu ayidsan yahay isla markaana ay yihiin kuwo u wada wadanka dhinac sax ah maadaama ay cid gaar ah ay taladii ay murugsatay waa sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya ka taagan runtii uma baahna inaan wax badan ka sheego maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed marxaladan waxay u wada baraarugeen wax muddo badan ay Puntland ay ka hadlaysay oo ka qeylisay waxaan marka hore rabaa inaan u tacsiyeeyo dadka saraakiisha iyo ciidamada madaniga ah ee runtii ku geeriyooday iyagoo difaacaya dalkooda ka difaacaya al-shabaab gaar ahaan deegaanada gobolada Hirshabeelle ee Hiiraan iyo Shabeellada waxaan u rajaynayaa meelaha kaleeto ee nimankaas xalaawayaasha ay joogaan oo dhan shacab iyo dowladba in si midaysan la isaga hortago waxaan runtii marka hore rabaa inaan soo dhaweeyo golaha maalinta way xamar looga dhawaaqay ee samata bixinta oo runtii aan ku bogaadinayo in mabaadi asaasi ah oo dhinaca aragtida dowladda Soomaaliya ay Puntland ay hore u qabtay inay la qaateen oo ugu muhiimsan tahay in la ilaaliyo dastuurkii dadkan ku heshiiyeen in la helo hanaan doorasho oo dadku ay ku wada socdaan iyo in la helo hanaan dalka difaaciisa iyo safayntiisa ururada argixisada looga wada qayb qaadanayo arrintaas oo aan rajaynayo xukuumadda hadda jirta inay ku fashilantay dowladda Puntland ay go'aan hore ka qaadatay 2022 December markay aragtay dalka meesha loo wado inuu yahay meel khaldan oo aan dadkan danihiisa ka tarjumay dadka Soomaaliyeed wax ku dhow 40 sano ayuu wuxuu ku jiray jahwareer siyaasadeed wuxuu ku jiray kala irdhow wuxuu ku jiray kala shaki waxaa dhex maray dagaallo colaado sokeeyo oo aan runtii ahayn kuwo lama jirtay waxaa dhacay barakac baahsan waxaa dhacay burbur dhaqaale waxaa dhacay sumcad dhac qarankii Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa la qabay muddo badan rajo wixii maalintaas khaladka ku dhacay in laga soo kaban doono laga soo bilaabo 2000 waxaa soconaya rajo Soomaalidu inay dawlad yeelan doonto waxaa socday shirkii Imagaad waxaa socday Garowe 1 iyo Garowe 2 waxaa la isugu yimid dastuur raali la isaga yahay waxaa 2012 markii ugu horeysay madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud lagu doortay gudaha magaalada Soomaaliya markii ugu horeysay intii burbur ku dhacay waxay dadku qabeen diilo waxaa dib u soo noqday dadkii dibadaha jiray waxaa hangalay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay fasheen dawlad waxay fasheen nolol waxay rasbisheen horumar waxaa dalka ku soo qamaamay dhammaan hay'adaha maalgashiga sameeyo oo rajaynayay khayraadka ceegaagaha dhulka Soomaaliya inay kaalin ka qaataan
waxaa dhacay runtii nasiib darro aan la filayn waxaa maanta bulshada Soomaaliyeed ay gaarsiisan yihiin inay marlabaad niyadjab ka qaadaan dawladnimadii Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed baraarug uu sameeyo meel kasta uu joogo oo arrin u baahan in cid kasta oo maanta saameyn ku leh hogaaminta dalka ay kaalin muhiim ah ka qaadato waxaan runtii baaq u dirayaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan kuwa xil haya iyo kuwa aan xil haynba in dalka samanta bixintiisa iyadoo oonan dana kale oo laga fiirinayn in dib loogu istaago haddii marxaladan samata bixin dhici weydo waxaa halis dalka ugu jira kala gogo iyo kala qoqob aan in laga soo kabto waqti badan qaadan doona waxaana saameynaysaa ubadkeenna iyo inteena jilicsan oo dhibtu haysato waxaan cod dheer ku baaqayaa in arrinta Soomaaliya dhulka la dhigo dib la isugu yimaado dalkana samata bixintiisu ay noqoto mid aan cidna lagu faquuqayn cid gaarana loogu danaynayn ee si mug iyo miisaan leh iyo miyir qabta looga hadlo haddii Ilaahay idinka dhigo arrintaas waxaan rajaynaynaa Puntland inay kaalinta kaga aadan qaadan doonto shacab iyo dawladba waxaan diyaar u nahay dhismo dawlad Soomaaliyeed federaal ku dhisan is ixtiraamaysa xuquuqaha qof walba ilaalinaysa damaanad u qaadaysa qof walba meesha uu joogo inuu nolosha laa'iqa u ah inuu ku helayo dawlad noocaas oo ka tarjumaysa in aysan noqon mid iyo qabiil iyo kala qoqob ku dhisnayn ayaa runtii rajaynaynaa inaan reer Puntland nahay kaalinta inaan ka qaadano muddada geedigaas lagu jiro waxaa iga dardaarana dadka reer Puntland midnimadooda inay ilaaliyaan wada jirkooda inay ilaaliyaan hay'adahooda dastuuriga ay ixtiraamaan ku xaq dhowraan cidda markaas dastuurku u masaamaxay inay xilka u dhiibaan inta kale siyaasadda ku jira ee xisbiyada siyaasadda ugu horeeyaan iyo indheergaradkuna ku dul joogteeyaan dadka xilka markaas haya in ay ka toosiyaan waxyaabaha ay ku khaldan yihiin oo ku dhaliilan yihiin gacanna ku siiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay wanaagga tahay waxaan reer Puntland iyo Soomaaliba u soo jeedinayaa wajiga siyaasadda hadda aan u barannay wuxuu qayb ka qaadanayaa inaan dawlad Soomaaliyeed noqon weyno dhaliilaha la iska dhex maraya social media aragtiyaha uu muuqda hebel booska ka kacso arrimaha u muuqda hebel waa idiidayo reerkeenna ma aha arrimahaas waa arrimo ragaadinaya mustaqbalkeenna dhaqankaasi kuma koobna midka aan xilka hayn kuwa xilka hayana eedda qayb bay ku leeyihiin waxaan u baahannahay in caqligu dib u shaqeeyo Soomaali dib u xisaabtanto mas'uuliyadda aan hayno aan dib u eegno runtii intii hawlgalkan aan ku jirnay waxayna bartay waxyaabo aan anagu ku fakarin waxaa yaab igu noqday ama kaago ilaa hadda aan garan la'ahay in dalkan ay dana u soo doonteen oo ay buurahaas u galeen niman ka yimid Venezuela iyo Argentina weligay kuma riyoon waan maleynayay anigu dawladahan Carabta iyo Afrikaanka waxa kan inay iimaanayaan maalintii ugu dambeysay dadka la dilaayay waxay ka yimaadeen qaar Holland waxay ka yimaadeen Latin America waa garan kartaan marka dalkan inuu noqdo dal la sahansaday ilka doofaar sahansan yaa la oran jiray horta masaas bay hayeen dad la sahansaday inuu noqdo waa muuqata oo dalal kale ku dagaalamaya marka dadka Soomaaliyeed iyo reer Puntland waxaan insha Allah fursadaan uga faa'iideysanaynaa indheheena inaan dib u furno xisaabtanka siyaasadeed iyo sida aan uga shaqeynaa aan dib u qiimeeyno hanka uu hadda ka sheekeeyay Islaan Ciise runtii khayr Allah hasiyo kelmado qiimo badan uu ka jeediyay oo ahaa qofku inuu u yaqaan waxqabadka inuu naftiisa wax u qabto markaan danta caamka ka shaqeyno ayay danta gaarka aan hirgelaysa dan gaar oo yeelan karno ma jirto oo aan ahayn inay dadkeena sharaf iyo karaamo ku noolaadaan caruurteena iyo ubadkeena ay noqdaan dad xarago iyo kalsooni ku nool ku barbaara uqdad la'aan dhaliisha aan u jeedinayno dhalinyaradeen oo leenahay daroogay barteen kana yeeleen mas'uuliyadaas annaga iskale hankii baan ka dilnay rajadii baan ka baabi'inay mustaqbalkoodii baan mugdi gelinay qofku inuu meel walba ku dhaco xaq buu leeyahay inuu badda isku tuuro inuu wax walba sameeyo runtii waxaan isleeyahay caqli ku filan oo isceliyay intuu qofku yar yahay ma leh cidda rabta mas'uuliyadaas leh waa dadka waaweyn oo mas'uuliyiinta ah heerarkooda kala duwan ama midka dhaqanka ahaado ama culimada ha noqdaan ama mas'uuliyiinta dawladda ha noqdaan ama aqoonyahanka kale ha noqdaan kaalintaas dhalinyaradu dhaliil male waxay u baahan tahay toosin iyo in la inqaadiyo oo la badbaadiyo arrintaas waxaan rajaynayaa insha Allah inay baraarug hor la nagu dhaliso oo qayb
ka wada qayb qaadan. waxaan rabaa ugu dambayn inaan halka ka sheego in aan Puntland haddaan nahay aan taageersannahay dowladda Puntland ay taageersan tahay dowladda Jubbaland kuna taageerayso inay noqoto mas'uuliyaddeeda guud. waxaan aad uga xunnahay weerarkii Ras Kamboni ka dhacay oo dhacay intii labada kala fadhi lagu kala maqnaa. runtii arrintaas waxay ahayd arrin xadgudub ah oo dowladnimada ku xun abuuraysana waxyaabo laga soo gudbay oo u muuqda dagaaladii sokeeye inay dib u noqon karaan. waxaan u rajaynayaa dadka gobollada Jubbaland jubbada dhexe xoogeeda niman shabaab la dhahaaba haystee jubbada hoose iyo gedo inay si miir qabta dalka mustaqbalkiisa uga tashadaan. wixii wanaag ah oo Soomaali ay uga qayb qaadan karaan ay kaalintooda ka qaadaan. wixii sharci iyo dastuur aan ahayn oo xadgudub ah oo dowladnimo ahayn inay iska celiyaan. arrintaas suuragal maaha in dowladda federaalku ay u adeegsato awooddii dowladnimo ee la siiyey inay deegaanada kale wax ku yeesho. arrintaas waan ka digaynaa. faragelinta lagu hayo maamulada aragtida saxda ah ku socda oo oranaysa haddaanan lay raacsanayn waxa weeye waxaa tahay cadowgayga. arrintaas waa arrin khatar ah. waa arrintii September 11 oo Bush ku dhawaaqay adduunyada u kala saaray ama ana ila jirtaa ama iga jirtaa. taas wax shaqayn karta ma aha. waxba ma dhalin ilaa ay hadda argagixisada waa sii xoogaysanaysaa. cudwaankii waa sii socdaa. dadku waxay ku dhaamaan walaalow aan wada hadalna ma jirto. in meel la isugu yimaado la wada hadlo oo waxa khaldan lagula arko ayaa ah dowga saxda ah. Soomaali dad isku awood sheegan kara ma aha. Soomaali dad isku joobi kara ma aha. qof Soomaaliya ama deegaan Soomaaliya oo waxa uu doonayo cid kaleeto ay ka bedeli kartaana ma jirto. waxaa la rabaa kaliya dadka deegaanadaas degan dhowr yar oo sufaha intay magacooda qaataan inay meesha doonaan ay kala dhicin. dadka intiisa badan waxaa la rabaa go'aanka maamulka iyo deegaanada ay joogaan inuu noqdo go'aan iyo maamul loo dhanyahay. hadday tahay dadka dhaqanka, hadday tahay waxgaradka kale iyo dadka xilka loo dhiibtay inta. haddii qof walba la yiraahdo xil baa lagu dhibay meesha doonto u durduri hadda waxa dhacay waxaan munaasab ahayn oo runtii aan laga mahadin. waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inuu caqliga taliyo, in nabadda laga wada shaqeeyo, in shuruucda iyo xeerarka ilaa hadda aan haysanay heshiiska lagu yahay lagu dhaqmo. wixii tabasho laga qabo la rabo in laga bedelana iyadoo la wada jiro laga wada hadlo oo la xasilan yahay. Puntland waxay diyaar u noqonaysaa iyadoo cid gaarana kilkisha ku wadan cidna aysan fogeynin in nidaamka dowladnimo ee heshiiska lagu yahay qaybta ay ku leedahay inay qaadato. waxaan soo dhaweynayaa runtii cid walba oo arrintaa ka shaqeynaysa. waxaan si gaara fariin ugu darayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxay shacabka Soomaaliyeed ku siiyeen fursad labaad oo aad dalkan ku hogaamisid. waxay ka dhursugayeen runtii rajo aad u weyn oo Puntland ay kow ka tahay oo runtii u arkaysay imaanshahaaga inuu noqon doono mid khayr u ah Soomaali mustaqbalkeeda. waxaan rajaynayaa wadada hadda lagu socdo wada sax ma aha. waxaan rajaynayaa in kastoo ay wanaagsaneen inaan bimbar nasiixa kaaga soo jeediyo haddana waa ka fursan waaye. maxaa yeelay wax badan oo si hoos aan uga hadlay waxba waa ka qabsoom waaye. marka haddaan la ismaqlin waxa ka dhalanaya waxaan wanaagsaneyn. waxaan ku hadlayaa waa dareenka iyo aragtida shacabka reer Puntland ay qabaan. waxaan rajaynayaa aragtidaas oo ah aan wada hadalno oo wanaag aan ka wada shaqeyno cid diidaysa inaysan jirin. waxaan rajaynayaa xilligii la ismarin habaabin jiray dalkan wuu dhaafay. shirar ama dhalaysa oo aan sax ahayn qabashadoodu waxba tarimayso. waxaa la rabaa shirar sideedaba dowladdu xaaladdan oo kale markay ku jirto wada tashi uma baahna. waxaana la dhaho ra'yi baan ka qaadanaya go'aankan ana iskale uma baahna. waxay u baahan tahay shirar dhab ah oo go'aan wada jira lagu gaaro oo nin walba kaalintiisa ka hayo. laakiin intii qofka loo yeero la yiraahdo taladayda waa ku dhageysta kaliya adduunkana loo sheego waa la tashada hebel iyo hebel macna abuuri mayso. meesheeda way ka miismaysaa. marka runtii shirka maanta madlanaa 15 u malayn maayo inuu qabsoomin iyo baaqdana waa maqlayay. wax markiisa horeba si fiican looga baaraandigin buu ahaa. haddana waxaan ku talinayaa shir loo dhan yahay
oo xaqiiqada oo dhabka hadal ah oo dalka lagu samata bixinayo inuu dhaco suuragal noqon mayso in dad kooban ay dalka masiirkiisa afduubaan suuragal noqon mayso markaas waxay noqonaysaa cid walba wixii markaa la gudboon in iyaduna ay ka tashato waxaan weli furan fursad dadka Soomaaliyeed danahooda uga bogan karaan dalkana qalooca gale looga sixi karo in aad garatid waxa markaas ku muuqdo waxa ka ra'yi duwan oo aad go'aan qaadatid kaasaan qaatay wanaag inuu keeno ma xumaan ma keeno bulshadaadana waxay jeceshahay waxa wanaaga ku jira waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala kaalinta Puntland oo inay midnimadeeda iyo difaaceeda ilaaliso kaalinta ay Soomaaliya ku leedahay ay qaadato runtii dadkeedana ay u horseedo nolol degan iyo horumar waa waajib anagoo dhan wada saarno aan rajaynayna inaan wada gudano aad baad u mahadsantihiin ariya jooji aan ku sii raace soo gal he socohe arday oo cadaa arqataarkan iga daji ilma haysta baabuurka waa cusub yahay afkaday yaad u sheegay waxaas wax kala jira mooye waa cusub yahay furbal kabarka كيه ياهو الشدالك كوكو جرا بوك إيغاتك يا ما يو أرد شدالك بلدوين بتروليوم كم بنيان كسوق عدلي مايا كحابه محاجرة قال لا أسوين الريها كشوبين بابورك شدالان كاهين كم بلدوين بتروليوم كم بني وركا إسي يا أجب كشدال كيسو بابورك وأورون يها كو أرد كيس حتى أرد أقدر سوما يا كده ولي بوا الله اسكوها لاي كرا ساسا للربا كسوق عدو كان كاسو هرجيدي طيار بلان كشوبو كشوبها كعي هيه حاد أركتا عادي ماها انتو كهورا waliba waxaan ku arkay oo yaala shidaalka noocyadiisa kala duwan sida basiinka naftada gaaska olyada oo kala nooca sida olya falcon olya fulcon olya project olya castrol olya mag olya hydraulic olya brake iyo garaasada noocyadeeda kala duwan sida garaasa falcon garaasa crown iyo spare partiska baabuurta dhammaantood waxaana ku qorneed waxaad ku heli kartaa jumlo iyo tafaariiq يا أول وركيك حاد وقبيسي caadi ma tihid هاي عوني بلدوين بتروليوم كامباني oo laba farac runta koowaad waxa ay ku taala xaafada Kooshin gaar ahaan ka soo horjeedka iskuulka Sheekh Maxamed Macallin dhanka midig ee dabaqa Dooli xarunta labaadna xaafada Kooshin laanta Nuur Xawaad ka soo horjeedka masjidka Nuur Xawaad waxaana diyaar kuugu ah wad la kulmi kartaa hadii aad daneynaysid dhaqaana daahir farax dhaqaana dahlay oo leh khibrad in ka badan 20 sano wixii faanintaas dheerna waxaad kala xiriirtaa eber 6 59 59 ama eber 6 59 ama eber 6 eber 7 83 eber 7 ama eber 6 eber 7 83 eber 7 يا هاي ضينا سعلة سوق عقاد waa tahay habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad weli dhageysanaysaan barnaamijka xogta Hiiraaweyn ayaana si toos ah idinooga dhageysanaysaan tilmaan la habo shayba inteedi la taabanaya taageera dadweyne weeye militariga Soomaaliya ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaal maalmihii ugu dambeeyay ka socday
dowlad goboleedka Hirshabelle dagaaladaas ay waxay militarigu sheegeen in lagu dilay xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen amaba ay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab Colonel Bakay oo ka mid ah ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay dagaaladii ka dhacay dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay ka kala dhaceen hadii waa shabeellada dhexe shabeellada hoose hiiraan mudug iyo galgaduud intaba dagaal ayaa ka socdo haday ahaan leed cirka iyo haday ahaan leed dhulkaba deegaanada ay ku soo gardaroodeen mar dhaxdaan ay soo galeen ayna waa ka socda dagaalka oo maysa ku nasansay u yimaadeen kumaysan nasan waxa ku socday weerarra cir iyo dhul ah marka ayagu qasaaro joog mar kastaba qasaaraha loo geysto aad u balaaray howlgallada ugu dambeeyay hiilaan ka dhacay wuxuu ka dhacay nawaaxiga meesha la yiraahdo El Hareeri oo meel la yiraahdo Tawakkal oo u dhaxaysa El Hareeri iyo aadan yabaal nawaaxiga El Hareeri marka qasaaro badan lagu gaarsiiyay sida kaleete dagaal ayaa ka dhacay meesha la yiraahdo El Dheere qasaaro badan lagu gaarsiiyay marka waa niman sidii oo maartay unfadiyo kala gudad hore ka qodan meesha yimaadaan marka haday ahaan leed howlgallada cirka iyo haday ahaan leed kuwa dhulkaba qasaaruhu aad u badan yahay amiiraa laga dilay jab xoog laha ku dhacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya marka waa nimankaasu dib uma yara waxaan rajaynaynaa kol dhow in dalkan laga waayo qasaaruhu ugu badnaa waxa lagu gaarsiiyay meesha la yiraahdo Tawakkal garas magan oo u dhaxaysa Tawakkal iyo El Hareeri meeshaas waxa lagu leeyahay rag amiiro horjoogayaal ah garas magan ha meesha la yiraahdo rag amiirayaal horjoogayaal ah oo kuwa dhibaatada maleega ah kan galgaduud iyo hiiraan iyo shabeellada dhaxaba nimanka maleeshiyaadka madaxda ka ah oo qaribaad badan wadankan ka geystay meeshaas ay ku baqtiyeen qasaaro badan meeshaas ku gaartay weerarada waa iska joogto ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya fariisimooyinka ay ku soo gadareedeen sida dhumashaalka ku soo galeen godadka ka qodeen habeen walba meydkooda yaalo oo lagu weeraraa waqtigooda yaalo habeen walba marka nimankaasu waa niman waxaan dhihi karaa dad jiran oo sumaysan oo adduunkan aan rajo ka lahayn oo waxay soo diraan oo ay daroogeeyaan oo cirbada ku dhufteen saan filaya marka dadkaasna waxa waaye kan ugu dambeeya ilaa oo la dilo wax rajo ma leh wax adduunay rajo u leeyihiin ama dad ama macnaha waa dad argagaxiso ah ama wadamo shisheeye ka yimaaday ama dalkeena kuwii dulliga ku ahaa oo nolosha ka dhacay waa waxay maartay ay ciidameeyaan ama ay maleeshiyaadka ka dhigaan qoryaha u dhiibtaan waa dooca sumaysan kan u dambeeya ilaa oo laga dilana wax rajo ay leeyihiin male doorka dadka deegaanka aad ay u dagaalamaan ama ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qadiyadooda hal meel ay ka wada go'an tahay waa la dagaalanka dal cadowga waa la dagaalanka argagixisada waa inuu dalkan xuroobo oo uu nabadgeliyo noqdo marka dadka deegaanka door muhiim ay qaateen haday noqon lahayd xogaha ay bixinayaan haday noqon lahayd hubkooda inay soo qaataan oo ciidanka qaranka ay garab istaagaan oo ay ka barbar dagaalamaan waa door muhiim ah oo la qarin karnay qaateen aad iyo aad u mahadsan yihiin mar walna waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonnimaan u rajaynaynaa dadka deegaanka af shabaab ku hadlaya jira oo kala qolqoleeya oo ciidanka deegaanka iyo ciidanka qaranka kala qolqoleeya ciidanka deegaanka iyo ciidanka qaranka dhammaan waxa ay difaacayaan waa qarannimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliya marka waxa ay la dagaalamayaan waa cadowga argagixisada marka mamuna in la kala qoqobo waa isku dad dalka wuxuu leeyahay ciidan dhisan oo xuquuq leh iyo ciidan kayd ah ciidankaas kaydka oo dalku leeyahay kamid yahay ciidanka deegaanka marka waa wax laba maartay wax la kala qoqobana ma ahan in la kala qoqobana ma ahan dadka howlgallada maartay waxyaabaha warbixinta xun ka fasiraya oo ka bixinaya sida xun uga hadlaya oo maartay dawladda qaarkood mararka qaarkood dawladda daleecaynaya oo youtuberada oo qaarkood qurba joog ay yihiin oo dad maartay meelaha ka soo wactama ay yihiin waxaas ayada waxaan dhihi karaa shabaaba inta soo dhaxmarsada fariintaas haduu ilaa ku ka hadashay ha yimaadeen furunta nimankaas horta horjoogayaasha oo ayagu amiirada ay u yaqaanaan amiira maahan waa niman baktiyay oo ducufiin ah oo dalkan inay macnaha dulnimadiisa ka shaqeeyaan dad ajnabi ay u soo wakiisheen koow nimankaas waa la dilay waxa lagu dilay meesha la yiraahdo garas magan waa maqlahay dad dhahaya ciidanka deegaanka dilay ciidanka deegaanka ma dilin dawladda dishay waxaas waxaan dhihi karaa
ciidanka deegaanka iyo ciidanka dawladda dhammaan waa ciidanka qaranka Soomaaliya waxay ka wada shaqeynayaan waa qarannimada ummadda Soomaaliyeed waxa ay shaqada ay qabtaan ciidanka deegaankana waxa qabtay ciidanka qaranka shaqada ciidanka qaranka ay qabtaan ciidanka deegaanka qabtay sababtoo ah waa labada gacmood oo iskaabto annaga iyo shacabka dawladna shacab la'aan ma noolaato shacabna dawlad la'aan ma noolaado annaga iyo shacabkana waxaan nahay labadii garab oo isgarabsanaysay ma kala nihin diliba hadishay cadow dalkan laga reebo ka haray waa dadka deegaanka ugu hambalyeynaya guul iyo gobonimo leeyahay waxaan leeyahay way dagaalameen way garab istaageen ciidanka qaranka dawladnimada waa u heelayeen maalin kasta ay dhimanayaan waxay mudan yihiin in la bogaadiyo waa bogaadinaya waxaan leeyahay guulaysta meesha aad wadaan ka sii laba jibaara cadowgan ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay qofna aan cafinaynin inaad go'aan u qaadateen inaad la dagaalantaan dawladdiina garab istaagtaan annaguna waa idinku dhiirigelinaynaa waa idinku hambalyeynayna doorka dawladda maxaa lagu tilmaami karaa marka doorka dawladda waxa waaye waa door muhiim ah dawladda qaadata xaqiiqda dhabta ah hadday ahaan leed inay cirka ka duqayso nimankan khawaarijda hadday ahaan leed in haduu ilaa ku rooyahay deegaanka kale ciidanka deegaanka kale qofka dhaawacma askariga xoog dalka iyo askariga deegaanka waa sam qofka dhaawacma isla markiiba helicopterta ka soo degto meesha waa la qaadaa dhaawaca rasaasta lagu dagaalamayo logistikada waxyaabahaas oo dhan waa wax dawladnimada ka yimaada dawladnimada door muhiim ay doorkeeda muhiimka way qaada farqi weyn u dhaxeeya xilligii hore argagixisadu dadkay ku dhaxmilmeed waa dhex joogtay tuulooyinka iyo deegaanada iyo ceelasha iyo dhulka waxay ku jirtay buuraleyda shacabka iyo ayagana waa isku dhaxmilmeen laakiin waayihii dambe 3 sano u dambeysay shacabkan gobolka Hiiraan qaasatan shacabka bariga Hiiraan degan iyo ayaga waa kala meermeen dagaal culus ah dhaxmaray shacabka dawladnimadu gacan siiyay marka maanta iyo maalinkaas farqi weyn u dhaxeeyo maanta kuma dhaxdhuuman karaan qoryahoodii sitaan waa la dagaalamayaan dawladnimadii bay si buuxda u garabsiinayaan xogtay soo gudbinayaan marka waxaan dhihi karaa dhul waagaas ayada laga xoreeyay inay dib ugu soo laaban waayaan hadda waxa sabab u ah dadka iyo waagaas ayada falsafadii dadka macnaha iyo ayaga ka dhaxaysay iyo maanta waxa ka dhaxaya labay kala yihiin maanta iyo ayaga iyo shacabka laba tubay kala qaadeen sababtoo dhibaatadoodii taabatay shacabkana dawladnimadu si buuxda u taageeray qoryihiisu soo qaatay ciidanka qaranka ka barbar dagaalamaya dhegeystayaal wali barnaamijka xogta ee warbaahinta Hiiraaweyn ayaad dhageysanaysaan Cabdiqani Cusubla ayaana idila socodsiinayo meel walba aad joogtaan iyo dhegeystayaal si walba aad inoo maqleysaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan Hiiraaweyn ayaadna si toos ah inooga dhageysanaysaan maalmihii ugu dambeeyay waxa ay soo tirayay baaqa ay dirayaan qaar ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed kuwaas oo ay si toos ah ula hadlayaan mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya baaqyada ay dirayaan odayaasha dhaqanka ayaa waxaa ka mid ahaa in ay gaaraan gogosha uu madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inay ka soo qayb galaan xildhibaanada waa markaasi siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ugaas Cali Dhoof ugaas Nuur oo ka tirsan dhaqanka Soomaaliyeed oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo doorka ay ku leeyihiin dhaqanka Soomaaliyeed dib u heshiisiinta dalka waxaa la yiraahdaa ugaas Cali Dhoof ugaas Nuur ugaas Maxamed nin ugaas oo dhaqan ahaan ahay dhaqan Soomaaliyeed baan ahay dhaqan qabiil gaar ah ma ihi dhaqan koox gaar ah ma ihi dhaqanka Soomaaliyeed oo soo jireen kana taariikh uu leeyahay wixii dagaaladii iyo burburkii ka horeeyay dhaqankoodu wuxuu ahaa Soomaali weyn luqunta waxa ahaa dhaqanka labada garabna waxa ahaa shacabka iyo dawladda iyo maamulka iyo sharciga iyo nidaamka
waxaa u dhaxeeyey oda dhaqameed. oda dhaqameedkaasu cadaaladda wuxuu ku gaari jiray oo go-aanka ku gaari jiray oo ummadda ugu xaqsoori jiray geed hoostiis ayada lagu heshiin jiray. Soomaaliya dhaqan bay leedahay, ama Itoobiya ha jirto, ama Jabuuti ha jirto, ama Kenya ha jirto, ama inta xorta ah dhexda ku jirta ha ahaato. dhaqan ay Soomaali dhammaanteed dhaqan bay leedahay. dhaqankaasuna waa dhaqan ka dhaxeeyo u ahaa. xeer Soomaaliyeed maxaa noo ahaa haddii laba reer iskhilaafto oo shaydaan dhex maro? waxay ahayd war reer hebelow maxaa xeer noo ahaa hadalka laga bilaabi jiray, waana lagu guulaysan jiray. xaq darrana waa la ilaalin jiray, waa laga ilaalin jiray. xaq iyo cadaalada lagu kala hagi jiray. waxaa dhacday burburkii wixii ka dambeeyey koonfurta Soomaaliya ugaas waa weys, nabadoon waa weys, culummo waa weys, ganacsato waa weys, siyaasi waa weys. waa dhammaan dadka koonfur degan ilaa ka soo bilow Gaalkacyo ilaa ku gee xuduudda Kenya. ummadda halkaa degan oo Soomaali weyn ah oo reer walba leh waxay weysay tiirarkii ay ku taagneed oo dhaqanka ugu horeeyay weys. laakiin Puntland iyo Somaliland weli waxba u dambeeya, dhaqan baa u dambeeya. markii siyaasadda dadka siyaasadda isku qabsadaan marjaca loo laabto oo ummadda samata bixiya oo amniga samata bixiya oo maamulka samata bixiya dhaqanka weyn. dhaqankaasu koonfur waa weys. nin u abuura oo yiraahdo warba dhaqankii dib ha loogu noqdo na waa la waayey, waa imaan waayey. koonfur waa ka imaan waayey. waxaan rabaa marka galabta haddii ilaahay qadaro, ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan markuu sameeyey oo uu dhulka sameeyey oo uu cirka sameeyey oo bini aadamku dhex sameeyey wuxuu soo dejiyey, wuxuu u sameeyey oo qolo walbaaba hadday diin leedahay iyo oo muslim tahay iyo haddii ay majuuso tahay iyo hadday gaalo tahaba dhaqan bay samaysteen. dhaqankaas kuwa qoraxda caabuda, annagu muslimba ma nahay ilaahay xamdigiis. kuwa qoraxda caabuda iyo kuwa lo'da caabuda dhaqan bay leeyihiin. dhaqankaasu wuxuu u go'aamiyey ku go'aan ma gees marayaan, laaluush ma qaadanayaan, eex ma samaynayaan, qaraabakiil ma samaynayaan. dhaqankooda wey. afar tiir oo dhaqanku kow yahay oo diintu laba tahay. ilaa qofka markii uu dhaqan leeyahay oo uu bini aadan yahay oo ilaahay sameeyey oo uu meel ku nool yahay, dhaqankii ay hoggaan ka dhigteen, diinta markaas ay aaminsan yihiin, waa in la helaa culummo hagaysa, waa in la helaa. markii dhaqankii iyo culummadii la isla helo waa in la helaa dhaqaalihii, waa in la helaa. ilaa dhaqaale la'aan lama noolaan karo, waxna ma soconayaan. dhaqaalihii markii la helo siyaasadii iyo sharciyadii iyo kala dambayntii iyo maamulkii iyo dowladnimadii waa in la helo. afartaati way isku taagan yihiin, way isku xiran yihiin. afartaas oo afar iskaabaysa wey. Soomaalida marka waxay samaysay afartooda siyaasadii ugu dambeysay u soo hormariyeen. dhaqankii meesha laga saaray, diintiina meesha laga saaray, dhaqaalihiina meesha laga saaray. isla markaas siyaasadii waxay ku soo wareegtay dhaqaalihii. ama mid ay iyagu abuurteen ha noqoto ama ganacsatadii ha noqoto. ganacsatadii iyo waxaa shirkoobay iyo maamulkii iyo dowladnimadii iyo maamulkii iyo siyaasadii shirkoobay. diintii iyo dhaqankii iyo shacabkii halkaasaa lagu baaba'shay. halkaasaa looga tashaday. labadaa qolo wax alla waxay rabaan Soomaaliya ka shaqaynaya. kan lacagta haysta iyo kan madaxda ah oo siyaasadda ah, labadaasaa ka shaqaynaysa. dadweynihii iyo dhaqankii iyo diintiina waa la baaba'shay, xaggaba looma fiirin. waxay halkaasu sababtay in ciidankii iyo qorigii iyo amnigii la rabay ummadda iyo dalka iyo diinta iyo dadka in lagu ilaaliyo waxaa maamusha ninka lacagta haysta iyo ninka dowladda haysta iyo ninka siyaasiga oo dowladdu shay lacag ka soo qaata. ilaa qof lacag samaysta waa isnaqaan Soomaaliyu. dadka ama maanta dhaqaalaha Soomaaliya haysta ilaa raas casiir ilaa Gambooni, dadka hantida haysta iyo dadka madaxda ah iyo dadka hadii la ku ururiyo ganacsatada ah, waxa ay ahaayeen iyo nin walba backgroundkiisa la hayaa, liiskiisa la hayaa, wuxuu ahaan jiraa la hayaa, wuxuu haysan jiraa la hayaa.
wuxuu ku soo koro aabihi ku soo koriyaa lahayaa qof aan lahaynoo soomaaliya ma jiro intaa ka bacdi waxaan baaq dheer u dirayaa oo baaq nabadeed u dirayaa soomaaliya meela joogtaba etoobiya waa la isku dilayaa somaliland waa la isku dilayaa puntland waa la isku dilayaa inta ka dhaxaysa waa la isku dilayaa war ilaahay ka cabsada war soomaaliya ilaahay ka cabsada war 2 mitira idinka horeysa haddaad ba nasiib u hesho 2 mitira idinka horeysa war ilaahay ka cabsada war dhaqankiinii dib ugu noqda war diintiinii dib ugu noqda war darisnimadii dib ugu noqda maxamed siyaad barre maalintuu inqilaabka ku qabsaday wuxuu yiri wax dhaqan la yiraahdo ma jiraanba waxa dadka dhab qaribay waa dhaqan uu yiri dhaqankii Soomaalidu aruuriyay waa la og yahay bari uu geeyay 6 bilood ay ku xiraayeen bari walaalaha ayaa kamid aha 6 bilood ay bari ku xiraayeen 6dii bilood meel alla meel uu ka bilaabo iyo meel uu dhaqaajiyo waay dib u soo daayay xamar uu ku marti qaaday xamar uu keenay heshiis uu la galay wuxuu yiri dadka shacabka iyo aniga adinka noo dhaxeeya wixii aad dhibaato u aragtaan oo aad adinku xalli weysaan ana xoog idin ah wixii aad xalli kartaan oo hore u xalli jirteen xalliya gidiga yahaayeen mushaari uu ka dhigay sidaas dawladii ku dhacday iyadoo wali dhaqankii sharaf iyo karaamo uu leeyahay oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyo oo meeshii la rabo dhaqankii jooga oo markaas xallinayo wixii ka dhaca ayaa dawladii ku dhacday dawladii markay dhacday marka dhibaatada ugu weyn waxay ku dhacday dadkii koonfur deganaa shabaaba haddana waxay yiraahdeen wax dhaqan la yiraahdo ma arki karo meel alla meel ay la xiriiraan iyo meel ay shacabkii ka soo galaan iyo shacabkii say xiriir la yeeshaan waayeen dib dambe ay qoys walba iyo qabiil walba Soomaaliya waxay uga qorteen dad dhaqan oo la shaqeeya al'aana wala la shaqeeya dad dhaqan al'aana la shaqeeya oo qabiil kasta ah waxaan marka leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo koonfur deganay warni walbo jifa walbay qabiil walbo dib isugu noqo wadankii maanta meesha uu marayo waa loo jeedaa qof kasta oo wax garada oo Soomaaliya maanta meesha aan taagana waa u jeedaan adduunyadii dhibaatada iyo holaca iyo burburka iyo awood sheegasada la isu awood sheegana waa u jeedaan waxa kale oo jira madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kugu talinayaa madaxweynuhu anigu odagaagii baan ah ugaaskaagii baan ah wiilkay baad ilaahayana ku gartay 2 goor Soomaaliya inaad xukunto ama ha qaldanaadeen ama ha toosnaadeen waa soo shaqaysay maantana ragga faraqa ku haysta oo kuugu darano waa dadkii aad isla qiimaha iyo qaybta lahaydeen Soomaaliya markay wax qaybsato dadkaad isku qaybta ahaydeen weeye hadda dadka kuugu darano hadda farqa ku haysta waxaan madaxweynuhu kugu talinaa Soomaaliya xoog lagu ma muquuni karo hawiyana xoog isku ma muquuni karo Soomaalina xoog kuma muquuni kartid nimanka mucaaradka ah oo orarka joojiya ama maamul goboleed ahaada ama dadkan kale oo mucaaradka ahaada buuqa iyo dagaalka iyo cagajugleynta iyo ababada joojiya madaxweynaha muddo yara u hartay asagana wuxuu yiri wax la yiraahdo anigu muddo kororsi uma socdo roori doono horti lama rooraa li waxa u haray 10 bilood u hartay ama 11 bilood u hartay hallo cagdhigo si uu sabri marmarsiyo ugu helin anigu waxbaan qabalahay ee wixii waa la ii diiday inaan fursad qabto waa la ii diiday fursada la ii diiday marmarsiyo uu helin u kaadiya oo cagdhiga wax yara naga xiga iyo malkumooda naga xiga madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa inaad Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa adaa ku soo kaambayn gareeyay adaa noo sheegay anigu inta Soomaaliyaan jooga xamar baan jooga waligay idaacad kama hadlin waxba kaama sheegin waxba kuma sheegin laakiin galabta dardaarankii ugu dambeeyaan ku sheegaya galabta inaan halkaan ka hadlana waxa igu kalifay gogoshii aad fidisay oo maanta qabsoomi weyday hadday qabsoomi weydana dhibaatada ka soo socota oo xamar laga aruurayo aan anigu u jeedaa dhibaatada laga joojiyo magaalada waa la wada leeyahay waa caasimadii Soomaaliya aqligii iyo cududii iyo maalkii iyo manficii Soomaaliyeed galay magaaladan hal qoys iskama leh af Soomaali inta ku hadasha iska leh magaaladan yaa la burburin yaan dhibaato loo abuurin dhibaato shacabkan inta ugu filan waa haysataa yaan dhib kale loogu darin madaxweynuhu arrintan waxaan ka codsanaynaa annaga oo dhaqameedkiya
isugu yeer ummadda soomaaliyeed dhaqankaa isugu yeer haddaad siyaasaddii isfahmi weydeen adaa madaxweyne oo maanta kursigii joogee dhaqanka soomaaliyeed oo asalkaa isugu yeer markaad isugu yeerto dhaqankii la yaqaanay waxaad tidhaahdaa wadankii waa tanaa siyaasiyiintii waa ku heshiin waayeene awalba dhaqanaa maamuli jira wadankee wadanka ka taliya nabadiisa ka taliya horumarkiisa ka taliya wax fiican baa ka soo bixi doona dadka soomaaliyeed dib ha isugu noqdeen sida somalilan iyo puntland waxbaa u aruuran haddii hadda laysu baahdo iyagoo dadka u aruuran oo maanta u joogo iskugu soo dirayaan koonfur waxba uma abuura koonfur waxba uma abuura koonfur wax loo abuuro markii koonfur wax loo abuuro dhaqanka soomaaliya ha laysu keeno talada ha loo kaadiyo assalaamu calaykum waalid dhalinyaro iyo guud ahaan bulshooyinta soomaaliyeed talaalka mayb waa koo ku mid ah walaanka muhiimsan oonu ka dhowran karno naftaana owlaadaana dadka u nugul iyo guud ahaan bulshooda intiya kale tilaabo sahlan oo badbaado leh isla xilligaasna saameyn weyn ka leh nolola bini'aadanka iyadoo ku horseedaas bushayaal badan sida jadeecada dabeela qaahooda covid-19 iyo bushayaal kale oo laguga horseedo karo tilaalka dhammaan nagaarwiinta soomaaliyeed weli la tobiyey inay tilaalka iyo xaquuq caafimaad iyo mas-uuliyad bulsho owlaada tilaalka qaadatay may helayaana difaac dabiici ah iyo oo fursad an helayaan inay si caafimaad leh ankoraan waana weeldhadaan mustaqbal nuurow dadka weyn goon ahaan dariska leh xaalado caafimaad weli tilaalka ku badbaadiyey dhibaatooyin caafimaad daro tilaalka weli noo kaalmeeyay bulsho caafimaad sheefeylaya weli yaraayay khataro bushayaalka iyo qarashka daawada owlaadii aada waana fursad infuran qof kasta tilaalka weliba waa mas-uuliyad xaquuq iyo badbaado nagaareed fadlan ku qayb qaadoy wacyigelinta tilaalka ku faa'iidaysoy waana ka dhiirigeli dadka kale silindeera bulsho laang ah fariintun weli si wadajir ah siin deersiyaasee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshooda oo kaalmaysadaasa Save the Children iyo Gavi Alliance dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyay ayaan soo gaarnay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa maanta isbedel waxa uu ku sameeyay hoggaanka hay'adda ee gobolka Banaadir kadib markii uu xilka la wareegay maalnimadii shalay agaasimaha Nisa ayaa kaaliyaha amniga hay'adda u magacaabay walmarkaasi Aadan Maxamuud Cumar Aadan Dheere oo ka mid ahaa saraakiishii la soo shaqeeyay agaasimaha xilligii uu ahaa agaasimaha hay'adda ee kalkii hore sidoo kale Mahad Salaad ayaa dib u magacaabay taliyaha Nisa ee garoonka Aadan Cadde gaashaanle sare Xamdi Xasan oo sanad ka hor xilkan laga qaaday taliyaha hay'adda Nisa ee gobolka Banaadir ayaa isna loo magacaabay Liibaan Cabdiraxmaan Aadan isagoo xilkan kala wareegi doono
cabdifataax shaawe si la mid ah waxaa taliyaha ilaalada shacabka ee gobolka banaadir loo magacaabay sarkaal lagu magacaabo macalin saalax cabdinuur cali. Isbeddelka ku yimid hoggaanka qaar ka mid ah saraakiisha hay-adda NISA ee gobolka banaadir ayaa kusoo beegmaya kadib ballanqaadka agaasimaha cusub ee hay-adda kaasoo ah inuu wax ka qaban doono amniga caasimadda. Dhowaan ayay ahayd markii uu xilka taliyaha uu kala wareegay taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalosho oo muddo sanad ka badan ah xilkaasi hayay. Xilka markii lagu wareejiyay ayuuna Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbalosho waxa uu markaasi u rajeeyay in uu ilaahay ku asturo agaasimaha cusub xilkan uu ka markaasi uu la wareegayo. soo barisa maadkii beelad weyne maanteegin bishaaro shalay waa hurdi waaye habeen waaladi waaye hadalkaa waa u dhammaatay hoteelada magaaladan horyaalkii ka dhex muuqday golden iga hooya habedka loo dhisiyo habka loo naqshadeeya naftu ay ka heshaa iska daa ruux dhex hurdee hal markii dhex tagaa hawaysan maayo bannaanka no calashaan qabowga qolol heer sarreeya hurdada kugu dhaxayso waa halkaad ka helayso raashin kuwa habboon hubaal midhan fiican waa halka aad ka helayso shaqaale heegan oo hadalkaaga fulinaya waa halkaad ka helayso habeen iyo dharaar hoteelka golden waa rugaad ka helayso hotel golden waa hotel loo dhamaystiray adeegii looga baahnaa hotel sida nasiino raashin iyo wixii adeega ee aad u baahnayd waxaad ka helaysaa hotel golden qolol isugu jira double iyo single qolol VIP rooms ah oo wada mukayf ah nadaafadooduna sarreyso kuna qancaysa naftaada golden hotel waxaad ka helaysaa raashin dhadhan wanaagsan oo dheef ay u dheer tahay waxaana kuugu diyaara shaqaale loo carbiyey hawshaasi ka rogo laba saar weli ma dhex istaagtay ma booqatay beerta raaxada ee golden waa beer aad ka helayso nasiino naftuna raaxa ka dareemayso inta aad dhex joogtay loona dhamaystiray adeegii dalxiiska waana loo dalxiis tagahay degdegaar waa beer ay ku dhan yihiin inta badan dhirta indhaha u roon udugna la soona jiidanaysa qalbiga adigoo dareemaya raaxa iska fadhiya xataa waxa ay leedahay goobtii ubadku ay ku ciyaari lahaayeen dadka waaweyna ay ku nasan lahaayeen ha ka raagin hadda gaar hotel golden iyo beerta raaxada ee golden hotel golden one waxa uu ku yaala kasoo horjeedka aarigada koowaad ee magaalada beledweyne waxaadna ka wici kartaa eber 648 ama eber 624 beerta raaxada ee golden iyo golden hotel 2 waxa ay ku yaalaan duleedka beledweyne gaar ahaan ceel jaalle agagaarka warshada biyaha ee muwaasaca ama waa eber 624 eber 465 ama eber 622 eber 465 waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka xogta oo aad ka dhageysanayseen warbaahinta hiraaweyn muddada ee barnaamijka hawada ku jira waxaa si